السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذيني سلام يا دمان والله ميلو باي شوغان أذيني سلام يا يعني واحد حق ما أنت إني يسوي قد بني فيديو إيجابي والله يعني واحد كلامه وقبر صومالي وين وحاني كفر حسا ولا لين صومالي لدلي كفر حسا والله أرتوا واحد لا يقبضوا يا صوت ضدك أجانب تاني نمروا جذان عم ضدك أمروا جذان ضدك كلا صومالي ده أنا يكفر حندك كلا وحيل هذا إلى دعوة بالجورن تعالي تشوفك حمر ما دنا يقرح بقى المقرح لا يم قدادين لكن ولا انا براق صح معك لا حمر ويقرح لا يري ما انت ويقرح ذا بقول لم يم محل waxaan fahmi waayay kaalsa waxaan ka fahmay maanta way qarxiyeen na walaal mid aan ku sheego dadkan la qarxiyo horta dad adiga wax kugu sameeyay ma ku dayanaysa wiilkiisan dhahaj sidin oran jiray ma garanay magaciisa ayaad ku dayanaysaa na walaal waxaan waxba kaama soo gelin aan ku siiyo aan horta waanidii waxba kuma qaadanaysid laakiin waan advice ayaan ku siinaya hal waana ayaan ku siinaya waanadaas oo ah dadkan dhintay waa dad walaalahaya ma ahan dad ajaaniba ma ku aan baxbaas leedahay miimad weyn aan baxdeen waa wada aan baxday maxaa ku cab wanaag ku aan baxday naan mid baan ku sheegay la dhigiso maanta waad nooshay biritoolna waa dhimanaysa ayay walaal biritool markaad geeridaada timaado ama taada ku timaado maalintii aad tabaduuga ma ka tagsay ilaahay maxaad loortaysa ilaahay miimadu background-iga ka fikir maaha waxaan hore dad baa kugu farxay aqliga fikir gabadh baa tahay mid kale maxaa kugu watay in dad Soomaaliya walaalaha ku farxay jabkooda wallahi horta dadku isku raay ma aanu fiiyo inaan ku siibato ma doonayo laakiin se waanayaan ku siinay waanadaas oo inaadan martaba waxyaabaan oo kala aadan isku dayn fiidiyogan halka waan ka baxaya intaan ka sii bixin fiidiyogan yar dhameysana هذا حمر ويقرح لا يري تعسب مدرنا حيتي نجد دعوة حضرمينا نيوان كلا قشافنا اي نبدأ راح شيء على صوت درويو حمر تاهي حمر فيكي ماشي سومال لام باك شقة هورانج من الشاد قدبك نعم دربيه ذات لا اله الا الله رسول الله كلنا نجم النشاد ما ودن بيو قادم مسايستا ومعناه kale loo jeeday macnaha heesta inuu ka khaldaminay adiga aqliga uu isdaba marsan yahay imika gabadha heesta qaaday xitaa dhaliilaan leedahay nacabka darbiyada jida hore u qaaday yani inuu la jeedo Soomaaliya fiidiyoo intaasaan aynu ka baxaya kamana sii hadlay mar dambe waxaan kaloo ka hadlay iyaduna gabadh kale halkan iyaduna iska soo duubtay laakiin wax xumaata ma sameynayso iyadoo waa tan iyaduna labada gabdhood differentiga u dhaxeeya gabadhna waxay ka walwalaysaa dadkii la dhibaatay dadna waxay ku farxaysaa dadkii wax dhibaateeyay ku farxaysaa subhanallah agan taasi ugu dareeyay dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ku gaaray wixii dhintay Allah u naxariiso wixii dhaawacana u dhayo dhibaatadana Ilaahay ka dulqaado wadankaas dadka ku farxaya Soomaaliya jabkeedana de Ilaahay ka qabto inta waan ka baxay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi